Gurigani waxa uu ahaa guri aad iyo aad u cabsi badan, kaas oo gudihiisa iyo jawiyada cimiladiisa ay aad iyo aad u cabsi badan yihiin. Meeshani waxaa ku nooleed gabar lagu magacaabo Zara, taasoo xaafadda degnayd, taasoo inta badan iyadoo ay ku saabsan tahay qisada sheekadeena ama waxyaabaha aan ka sheekeyn doono. Gabadhani waxa ay ahayd gabadh aad iyo aad u cabsi badan ama aad iyo aad u fulisan ayay ahayd. Meeshani ayada iyo waxaa taagan aabaheed ayay su'aalo kala weydiinaysaa. Meeshanina waxaa ku nooleed hooyadeed oo ahay mid aad iyo aad u maskax adag. Meeshani ayay hooyadeed iyo gabadha ayaa isku imaaday, su'aalo ayay weydiinaysaa gabadheedina ayaa maxaa ka khaldan oo mar waliba aad waxaan ugu qeyqeyleysaa ayay leedahay. Gabadhina dhinaca kale hooyadeed ayay waxay ku leedahay hooyo waxaas aad sheegayso waxba kama jiraan. Dhinaca kale meeshani gabadhan waxaa loo keenay sameecad, taas oo la rabo markii ay ka tagaan hooyadeed iyo aabaheed haddii ay ka maqan yihiin laga yaabo inay sii shidato. Hooyadeed ayaa ku tirinaya waad i wareerisay aniga ee gurigani keliga ayaa jooga, cid kale oo kula joogtana ma jirto ee iga dhaaf qaylada ayay ku leedahay. Gabadhiina meeshan ayay hooyadeed ku calaacalaysaa hooyo waxa aad sheegayso waxba kama jirto ayay leedahay. Laakiin hooyadani waxa ay ahayd hooyo inta badan naxariis laawo ah, sababtoo ah gabadhan may soo korsanin may dhalin ayada, laakiin way soo korsatay oo keliya. Meeshanina qorraxda ayaa dhinaca waa subaxdii qorraxda ayaa soo baxday. Meeshanina maamadii ayaa taagan, waxaana soo gaarhaya codadkii cabsida badnaa noocyadiisa kala duwan. Ayadii marka hore waxay u haysatay been ama dheeldheel ayay u haysatay, laakiin markii ay soo gashay gurigiisa ayay la kulantay waxyaabo fara badan oo xasaasi ah oo aad iyo aad u cabsi badan. Guriga gudihiisa waxaa ka soo baxayay codadka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo wato shanqarahooda iyo khalkhalkooda kala duwan wata ayaa meeshani ka soo baxayay. Maamadii wixii ay gabadhii sheegaysay ayaa hadda ay rumaysatay. Dhinaca kale meeshani qorraxda ayaa soo baxaysay, maamadiina ilaa hadda way tacajabsanta, waxa ayna la yaaban tahay shanqarihii hadaayatu ay ka dhex maqlayso guriga gudihiisa. Su'aalaha ugu badan ee keligeed isweydiinaysaa marka ay tahay waxa weeyo war waxa ay sheegaysay gabadhii runteeda ayay ahayd ogow, oo aniga ayaa maanta dhegahayga ku maqlay kuna arkay ayay taagan tahay wixii ay gabadhi maanta sheegaysay. Dhinaca kale maamadii guriga dhexdiisa ayay dhex dawaafaysaa ama dhex wareegaysaa. Gabadhiina meeshan ayay taagan tahay maadaama ay ahayd gabadh aad iyo aad u cabsi badan. Inay cabsato waa sax, laakiin waxa ay la cabsanayso waxan baa jiro uun. Maamadiina maanta ayay wax walbaba xaqiisatay, indhaheeda ayay laba la ekaaday, cid kasta ayaa laba indhood la ekaatay. Gabadhii ayayna ku leedahay hooyo waxa aad sheegayso waa aan rumaystay, waan runtaa ee waxaan kuu sheegayaa iska taxadar ayay ku leedahay. Maamadii waa ay baxday, waxa ayna aaday xaafadaha deriska. Meeshani waxaa lagaga tegay oo keliya gabadhii yartahayd ee lagu magacaabi jiray Zara. Gabadhan ayada keligeed gurigan ma joogi karto, waayo waa ay ogtahay guriga xaaladihiisa saxda ka jirto, wayna isla yaaban tahay. Su'aalo ayayna isweydiinaysaa. Gurigu waa guri qurux badan, laakiin xawaarihiisa iyo gudihiisa ayaa ka soo baxayeen shanqaraha noocyadiisa kala duwan. Maamadii way baxday, waxa ayna aaday xaafadaha deriska, waxayna uga sheekeynaysay qisadii maanta ku soo dhacday xaafadooda, ayadoo uga sheekeynayso qisadii gabadh xaafadda deriska degan ayaa isla aminkiiba ayagina waxaa soo galay ama soo wajahay codadkii hadaayata ay ka tacajabayeen, ama codadkii hadda uga sheekeynaysay ayaa si automatic haddana ugu yimaaday. Maamadii ayay ku qaydaysaa gabadhii xaafadeeda hadda la imaaday. Dhinaca kale waxay u karisay cunto, taasoo ay rabtay inay cunto maadaama ay ahayd gabadh xaafadeedii kasoo tagtay oo xaafadeeda iyadana loogu imaaday. Waa ay marti qaadaysaa, waxa ayna rabtaa meel inay fadhiisiiso oo wax siisa ayay rabtaa, ama niyaddeeda saas ayay ka rajeynaysaa. Dhinaca kale meeshan xaafadii abdaayta ay kasoo tagtay horteeda ayaa waxaa ka shidan dabka noocyadiisa kala duwan. Dabkii ayaa meeshan ka daaran, wayna yaaban tahay. mid walibana waxa ay taagan tahay war meeshan waxa ka dhacay wax saxa miya ayay taagan tahay. Gabadhii gurigeeda hortiisa ayay dab ku shideen, wayna kasoo tageen. Markaas ayay meeshan su'aal ayay isweydiinaysaa. Waxa ay ku leedahay aniga gurigeyga waxa uu ahaa guri aad iyo aad u cabsi badan, aad iyo aad jawigiisu u degan yahay ayuu ahaan jiray, laakiin waa yaabanahay ayaamahan dambo. Dhinaca kale gabadhii lagu magacaabi jiray Zara ayaa guriga gudaheeda iska jiifta maadaama ay hooyadeed ka maqan tahay. Ayadoo sariirteeda iskaga jiifta ayaa waxaa soo gaaray qiiqii ka baxaya bannaanka gudihiisa. Way yaaban tahay, waxayna taagan tahay qiiqan yaa xaggee gubanayso xilligan ayay taagan tahay, maadaama ay ahayd xilli aad iyo aad u dambe. Way soo baxday, waxa ayna su'aalo isweydiinayso ugu badan maxay yihiin xilligan qiiqan soo baxaya. Way soo baxday, bannaanka ayay soo aaday ayadoo isla fiiri qiiqan xilligan bannaanka kaaga soo baxaya waxa uu yahay. Guriga ayay furtay. Guriga markii ay saa u furtay, harta guriga hortiisa ayaa waxaa yaalay qiiqii. Markay saa u soo dul istaagtay isla aminkiiba istaagga ayay ka dhacday.
istaagi marka ay saas uga dhacday isla aminkiiba waxaa meeshaas ka soo baxday dad qalasho taasoo laga yaabo inay ayada dabkaan shidatay oo ayada dabkaan ay ka dambeysay shidashadiisa. Meeshaani ayay gabadhii yarteed ku tagtay wayna cuntay ayadiina dad qalashadiina meeshan ayay taagan tahay waa ayna faraxsan tahay maadaama ilkaheedii dheedheeraa ay maanta qof ku cuntay ama ay gabar yar oo xaafad isku joogtay ay ku tagtay maanta toole. Meeshaani ayay iska baashaalaysaa xaafadda gudaheeda ayay dhex dawaafaysaa. Meeshaani ayaa waxa ay shidatay sameecadii gabadhii yarteed loo soo gaday oo lahaa markii ay cabsato keligeed hadda aragto ayaa lagu heesahayaaba. warkeedu waa cad yahay maadaama ay cuntay gabadhii guriga lagaga tegay ayadu warkeedu waa iska cad yahay oo way iska baashaalaysaa guriga gudaheeda codkeeda iyo xasaasiga ay iska wadataa meeshan. Maamadii ayaa ku soo laabatay gurigii markii ay gurigii ku soo laabatay si automatic waxaa soo gaaray shanqadhii iyo codadkii ay ku dhex ogaan jirtay guriga maadaama wax la yaabitaana ma laha waa ay ogtahay gurigan shanqaraha ka soo dhexbaxaya inay yihiin shanqaro aad iyo aad u cabsi badan oo inta badan saxmadoodu aad iyo aad u daran yihiin. Guriga ayay garaacday markii saas looga furayba waxaa islaaminkiiba soo gaaray ayadina sidoo kale daqiiqii ayaa madaxii ka soo galay waa ay yaaban tahay waxayna taagan tahay qiiqan xagee ka imaaday muxuusan ahaa ayay taagan tahay maadaama ay ku maqlayd qayladhaan ay dadka u dirsatay ayadiina guriga ayaa looba soo dabamaray war jiray cakaarimaa ayaa la dhihi jiray waa la isku soo galay meeshan. maamadii meeshan ayay waxa ay kula kulantay dad qalashadiina meeshan ayay taagan tahay waxa ayna la yaaban tahay fursadan quruxda badan ee maanta soo wajahday ay la yaaban tahay. su'aalaheeda ayay sii weydiinaysaa maxaad ahayd ayay taagan tahay dad qalasho maxaad ahayd maxaa la dhahaa waxay taagan tahay maanta aniga farxadeyda lama soo koobi karo maadaama gabadhaadii yareed aan cunay adigana aad maanta gacanta iigu jirto cid ay ka celinaysaana aysan jirin. taleefon dirso ayaa la dhahay walaal cid ku soo gurmato dirso ama cid kaleeto ku garab qabato waxay taleefonka u dirsatay saaxiibteed oo hadayto ay ka soo tagtay. saaxiibteed ayaa waxay ku tirinaa waxan dad qalasho way dhaaftay maxay ahayd saa markay u hadashay cunaha ayaa dab la siiyey oo cagaha ayaana dhulka looga qaaday maadaama ay dad qalashadu ahayd mid aad iyo aad u xoog badan una cabsi badan ayaduna ay baryahan oo dhan raadinaysay cid ay cunto ama ku quraacato. saanayay kor ugu qaaday cagaheeda ay dhulka uga qaaday mar walibana su'aalaha isweydiinaysaa waxa ay tahay walaalay way calaacalaysaa idhig ayay taagan tahay maxaa la dhigaa dad qalashadan maanta waa wanjaaris gool ayay ku heshay labada nagood labada gacmood ayay ku kala qabatay cagihii ayay dhulka uga qaaday mid walibana waxa ay rabtaa inay ku quraacato ama ku tagto ayay rajeynaysaa mid waliba mar walba ayay dhankeeda fiirisaa su'aalo ayay wadnaha kaga jirtaa. dad qalashadu waa dad qalasho aad iyo aad xasaasi u ah waana inoo soo wadaagi doonaa inta keeta ee ka dhiman. wassalaamu calaykum waraxmatullahi